محمد عبد الرزاق قرحي oo gudoomiyaha ururka ONLF ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay dalkaasi Jarmalka waxa uu hambalyo ugu diray 36 guuradii ka soo wareegatay markii ururkaasi la aasaasay ayaan lahay wariyahayaga ayaan la mudakar ayaa warkan waxa uu ka soo diray wadankaasi Jarmalka gudoomiyaha ururka ONLF ee magaalada Berlin ee caasimada dalka Jarmalka Maxamed Cabdirasaaq Qorraxi ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa waxa uu hambalyeeyay ururka ONLF sanad guuradii 600aad ee asaaska ururkaasi sidoo kale waxa uu faahfaahin dheer ka bixiyay heerkii ay soo martay jabhadda ururka ONLF ayaa waxa uu yiri sanad guuradii ururka ONLF ee ka soo wareegatay 1984 maanta la joogo hambalyo iyo bogaadin baan u dirhayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan hambalyo baan leeyahay waxa kale oo ii sheegay hadii la kuuriya aan halkan ayuu ka xusahayaa dhalinyarada firfircoon ururka OSU baan salaan qaali u dirhayaa waxa kale oo ii sheegay hadii la kuuriya aan leeyahay shahiidiintii dalka Soomaaliyeed u shahiiday agoontii ay ka tageen waxaan leeyahay sabir iyo iibaan Allah inaga siiyo aabayow iyo hooyooyin guul baynu fadhinaa agoontaan waxaan leeyahay hadii la kuuriyahay waa dhargi doontaan insha Allah ta'ala abayowgin wuxuu u shahiideen dad iyo dal Soomaaliyeed bay u shahiideen umayna shahiidin wax yar oo iisi ah ayaguna waxay ugu leeyihiin xushmad gees iyo xusb bay ugu leeyihiin waxa kale oo ii sheegay hadii la kuuriyahay aan jeclahay bulshada meel kasta oo joogto kuwan maamulka hadii la kuuriyo Mustafa Maxamed Umar iyo maamulka waxaan leeyahay maanta waa maalinteedii gacmaha la isqabsado dalka iyo dadka alla soo qabsado ayatinkiisa iyo future-kiisa gacmaha la soo qabsado yaan loo kala tagin maanta hadii la kuuriyo dhanka ka baxda waa bakay la galeen waxa weeye sheegay hadii la kuuriyo ururka hadii soo halgamay wuxuu soo halgamayay ciidanka iyo Mustafa iyo maamulka meesha jooga dadka Soomaaliyeed oo dhan buu halgamayay oo u shahiideen agoonta hadii la kuuriyo maanta joogta abayow wuxuu shahiideen dadkaas u shahiideen ay rabeen inay xorriyad iyo dimuqraadi ay gaaraan khayraadkooda iyo shidaalkooda iyo dahabkooda iyo markarigooda inay difaacaan diyaar bayna hadda u yihiin weli ku sii hawl jiraan oo hawshu way ku jiraan maalin kasta hadii la kuureeyay dal iyo dibad meel kasta oo joognana gacmaha nu saysanaa ururka aan meel kasta oo joognana gacmaha saysanaa waxaan gacmaha soo haysanaa sidii Soomaali loo midayn lahaa sidii Soomaali xaqeeda loo raadin lahaa sidii masabada iyo masayrka iyo magaca guud ee Soomaali calanka buluugga ah ee aragtaan loo raadin lahaa حقوقه وكله هي دلك أفريقيا كي من قدما فريسان ما إنه حدانا نهاي أورك OSU يهدانا نهاي دليرة يهدانا نهاي هويوين يهدانا نهاي أبيو يهدانا نهاي أورك ONLF قدما فريسان ما إنه حق Soomaaliyeed أجانب من أجانب أو غندر يجوشان كيلود قدما فريسان إنه حشبان لنا هاي وانكوين هاي دلك يدك يجا إنه قدما فريسانه دد أجانب أو كسودولي ku amar taagleynahaya aan isku af ahayn aan isku isir ahayn shidaalka iyo khayraadka waxa iska leh dadka Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku nool meel kaste yaa iska leh khayraadka male goojaan wiilka yimid wiilka Muqdisho iska leh wiilka Waqooyi baa iska leh wiilka Bari baa iska leh wiilka Koonfureed baa iska leh wiilka Baydhabo iska leh cid kale oo iska leh ma ay jirto oo ayaga ka ahayn waxa weeye dadka xaqoodii way waxa aan difaacayno markasta habeen iyo maalinba loo taagan yahay عالم كان هدي لك كل مسؤولية سلول هذين هيو وحن لا هي شيء هدي لك كل جامد ودري وحرين تقولين كادرين تا أورك أو أنا لا ما أنت ومانتني ما أنت ومانتني ما أنت ومانتي مسبة الصومالية إن بدل أدرادين السين قعنت ما أنت هدي لك كل أنكو هينا جمعها الله يسقط صدي هوري السعدان من الله هي وحن إيش هدي لك كل الله هي أورك أو أنا في ملك السعود شوفتان همبليو إن شاء الله تعالى وحن تعالى هي سنة كيسة سيدد يتضبط تنبورده حرية يعانك بلوغا يعانك ONLF أول تاجي يشعب الصوماليين أو مد وأيلا مذكر RTN TV جرمالكا